بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. يا فول وناكسن يا عشاء وناكسن. سلام كدي وحرم هذا غير ضمان مرت شرفته إنه لا تميد ضررك كالدول بدر لما تقول سود وينيا وكذا إثيوبيا هي تركيا جيبوتي هكذا كنا أذيال دول سود وينيا وحسود وينيا إقبال بروفيسور إقبال صاحب لا سوماليلاند وإن بدن لسه شقينا أذيال دول سود وينيا ضمان مدحda axsaabta golaha wasiirada firgudoonada odayaasha waaweyn ee salaadiinla madax dhaqan leh ee culimo leh ee ganacsatada waa soo dhaweynaa iyo mudakarka jooga jirweyn cashadooda waxaan u mahadnaqayaa guddidii soo qabanqaabisay xafladda 18 May 18 guurada sanadkan oo ka koobnay wasaaru iyo jabnada ciidamada iyo aqoonyahan iyo wiilal iyo gabdhaba waxaan uga mahadnaqayaa sidii hagarla'aanta ahayd ee muddo bil iyo dheeraad uga soo shaqeynayeen hawsha iyo siday u muujiyeen maalintaas qiimaha ay leedahay diyaargarowgooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddigaasi guddoomiyaha u ahaa wasiirka daakiliga oo ay ka mid ahaayeen wasiirka ganacsiga wasiirka gaashaandhigga wasiirro badan iyo jabnada ciidamada kala duwan oo waxaan kaloo uga mahadnaqayaa dhammaan gobollada Somaliland balasaabada gudoomiyayaasha degmooyinka ama meeyarada taliyayaasha ciidamada dadweynaha ku dhaqan gobollada oo dhan madax dhaqameed culimo ganacsato iyaga oo maanta si nabadgelyo ugu dambaal tegay qaranka Somaliland taariikh ilaa loo yaacdo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan gobollada ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayaa nabadgelyada ay noogu soo dhammaatay ayaanu ku mahadinaynaa intaa kadib hadal badan caawaran maayo waa mahadnaq iyo duco waxaan kula doonayaa inaan horta ka xariiqo haddaan nahay Somaliland oo caawa halkan ku dhan hadday tahay madax dhaqameed salaadiin hadday tahay culimo hadday tahay golayaashii qaranka hadday tahay ganacsatadii ugu magaca weynay hadday tahay aqoonyahan haween rag annagoo dhan waxaan doonayaa halkan caawa inaan baaq dheer ugu diro dalalka jaarkeena dhammaantood baynu nabadgelyo kula noolaanayno gaar ahaan waxaan u sii dirayaa Soomaaliya oo maanta muran xoog naga dhaxeeyo muddo 30 sanadood waxaan xuduud ka wadaagnaa waa Puntland oo xadeero 500 kiiloomitir aan wadaagno Puntland madaxdooda waxaan ugu baaqayaa Somaliland waxaan idin wadnaa nabad iyo walaaltinimo iyo inaynu xasilooni ku wada noolaan waxaan rajaynayaa inaan khilaafka madaxdeena ka dhicin waxaan doonayaa inuu noqdo laba dal oo ay soo furan oo si walba oo ganacsi leh oo dhaqan leh oo aqoon leh isu wadaagsada waxaan diyaar u nahay oo nabadda niyadana ka bilaabaynaa caawa waxaan doonayaa inaan u cilaamiyo inaan diyaar u nahay inaan sii deyno maxaabiistii lagu soo xiray dagaalkii Tubarra ee halkan ku xidhan iyaguna ay soo wareejiyaan wixii ay naga hayaan waxay la tahay inay xabsi ku jiraan inaanay waajib ahayn sidaa darteed waxaan codsanayaa iyaguna inay diyaariyaan waxay hayaan aynu hay-adihii ku shaqada lahaa ee hore inooga dhaxaynayaan waaqintaas ay ahayd inaynu arrintaa dhammayno xaggayaga waa ka diyaar idinkana taasaan idinka filaynaa taasoo noqonaysa tallaabadii u horreysay ee nabadda iyo soo dhawaasha aynu ka filaynay taasina waa baaq nabadeed oo u dirayo madaxda Puntland waxaan u mahadnaqayaa dhammaantii ka soo qayb gashay dal iyo dalba Allah inoo barakeeyo rabana khayirkeeda Allah inoo siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh